Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa caanaha ilmaha u fiican caanaha iyo ilmaha ku cayili karaan korinshahoodan u fiican ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa iyo goormee loo bilaabi karaa caanahaas marka soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horeysa ana soo booqataa subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddaa hore noola joogtan like noo saar asxaabtaadana usii share garee waxaan ka hadlaynaa caanaha maanta waa caanaha lo-da goormee loo bilaabi karaa ilmaha maxay faa'iido u leeyihiin maxayse dhib u leeyihiin ayaan muuqaalkan kusoo koobi doonaa caadi ahaan caanaha lo-da ilmaha mamnuuc waa in la siiyo intay sanadka yar yihiin li'anna ilmaha jirkooda uma diyaarsana in ay la falgalaan caanaha lo-da caanaha lo-da waxaa ku jira sodium iyo borotiino iyo maxaa la dhahaa waxyaalo amlaax la yiraahdo ayaa ku jiraan marka uma diyaarsana keliyaha cunuga in maxaa la dhahaa ay la falgalaan maadooyinkan oo ilmaha cunuga keliyihiisa uma diyaarsana intuu sanadka yar yahay marka ma xamili kariyo caanahan midda kale waxaa caanahan ku yar birta ayaa ku yar caanaha lo-da birta ayaa ku yar oo cunugii hadduu sanadka yar yahay kale maadaama cunto kale uusan qaadanaynin oo kale haddii naaska hooyada uusan nuugin oo cunuga caana kaliya ku tirsan uu yahay kale cunuga si u fududa inuu dhiig la-aan ku dhaco li'anna birta way ku yar tahay caanaha lo-da sodiumtana way ku badan tahay iyo borotiinadan iyo waxyaalahan amlaaxda la leeyahay oo cunuga keliyihiisa uma diyaarsana ayagana inay la falgalaan cunuga marka intuu sanadka yaryahay waxaa wanaagsan naaska hooyada waxa ugu wanaagsan ilmaha ay ku cayilaan midda koowaad waa naaska hooyada in naaska hooyada cunuga intuu maxaa la dhahaa uu sanadka yaryahay la siiyaa maxaa la dhahaa haddii uu naaska ku yaryaho kale in caanahan maxaa la dhahaa gasacyada ah ee ilmaha loogu talagalay ee sanadka ah in la siiyaa ayaa wanaagsan haddii cunugii mar uu soo gaaro 1 sano oo maxaa la dhahaa oo sanad jiro markaas waa u bilaabi kartaa caanaha laakiin caanaha meesha ay ka qaadanaysid waa inay noqdaan meel nadiif ah maxaa la dhahaa lo-daasna aysan ahaynin wax daaqay ama wax cunay maxaa la dhahaa waxa magaalada ama dadka magaalada waxay cunaan qof wax cunay inaysan ahayn lo cunta inaysan ahaynin ee lo-daas ee cunuga caanihiisa aad siinaysid ay tahay lo maxaa la dhahaa miyiga daaqday caanaheeda ay nadiif yihiin li'anna kuwa magaalada daaqa jarmiskooda ayaa badan oo wax faa'iido ah cunugii markay keenaya aan cudurro ka ahayn marka haddii lo-dii meesha ay ka qaadanaysid caanahan lo-da waa inay noqotaa meel lagu kalsoon yahay caanaha nadaafadooda iyo maxaa la dhahaa waxtarkooda oo lo-dan ay tahay lo daaqday maxaa la dhahaa miyiga iyo baadiyaha lo soo daaqday inay tahay tan labaad oo maxaa la dhahaa qiimaha aad ka fiirinaysid caanahan waa inay noqotaa inaadan wax biyo ah ku darin maadaama aan leenahay caanahan waxaa ku yar birta haddii cunuga jirka birta cunuga ay ku yaraato jirkiisana waxay keeni kartaa in cunuga anemia ay ku timaado anemia ama dhiig la-aan inay ku timaado ayay keentaa haddii cunuga jirkiisa ay ku yaraato maadada birta marka waxaa wanaagsan haddii oo hooyada cunuga ay caano siinayso kale tan labaad waxaan ka dhigan in aysan biyo kaga darinin oo kale caanihi ay yihiin caano nadiif ah maxaa la dhahaa shaahin aynan kaga darin li'anna haddii shaah ay ku darto ama biyo ay kugu darto ama waxyaalo kale ay hooyada uga darto cunugii qiimihii caanaha way yaraahayaan li'anna caanaha marka hore birta ayaa ku yareed oo cunuga looga cabsahay ama anemia ku keentaa laakiin la dhahay jirka waxyaalaha kale ee faa'iidahan u leedahay cunuga ka faa'iideysan doona birtaasna wuxuu keli doonaa cuntooyinka uu cunaa marka haddii inta yaradoo birta ahayd oo caanaha lo-da uu heli lahaa haddii aad biyo kaga darto ama shaah kaga darto qiimihii caanaha way lumayaan marka waxaan nahana waa inaan waxba loogaga darin waa in caanaha meesha laga qaadahayo meel nadiif ah ay noqdaan caanihiina caano wanaagsan ay noqdaan tayadooda ay fiican tahay maxaa la cunuga intuu sanadka yaryahay aanan la siinin caanaha lo-dan ilmaha caadi ahaan way ku cayilaan waa haddii caanaha nadiif yihiin waxba aadan ku darin si joogtaan cunuga u siinaysid caanahan lo-da waa ku cayilaan ilmaha waxaa dhici karto mararka qaar in cunugii maxaa la dhahaa caanaha lo-da uu qaadanayo kale soo sanad ka yar oo kale aasiisa ama sanad uu ka wen yahay oo kale aasiisa oo cunuga saxaradiisii waxaa dhici karta mararka qaar in dhiig soo raaco waxaa dhici karta in cunugii caanihii marka lo-da aasiisidoo kale uu matag iyo shuban cunugii uu bilaabo kale caanihii uu soo celiyo oo maxaa la dhahaa ayadana way dhici kartaa markaasoo kale waxaa laga yaabaa cunuga in caanahan uu xasaasiyo ku qaba caanaha lo-da marka aragtidoo kale in cunugii caanihii uu matag bilaabay uu shuban bilaabay inaa kadii sida wanaagsan aad ka beertid xasaasiyadda caanaha inuu cunuga ku qabay in kale haddaa ogaatidna markaas waa ka bedeli kartaa oo caanaha gasacyada ayaa ku celin kartaa haddii uusan ku qabin oo kale cunuga uu waxba soo celin uusan lahayn oo kale markaas siisid cunuga caadi waa oo xasaasiyo kuma qabo jirkiisa uu qaadan karaa oo uu ka faa'iideysan karaa
marka hooyada markay isticmaalaysa caanaha ay soo qaadataa waa inay sii karkarisaa oo waxaa ku jiro maxaa la maado la yiraahdo microbaad waxyaalo la ku jiro oo ilmaha jirkooda aysan xamili karin marka hooyada markii ay maxaa la meel lagu kalsoon yahay caanaha ay ka soo qaadataa waa inay sii karkarisaa caanihii si jeermiski iyo wixii kaga dhintaan maadaama loodan maxaa la loodan hadda Soomaaliya daaqdo kale aan la xanaaneynin oo la daaweynin oo kale oo maxaa la ay tahay lo oo miyiga isaga nool hadii kale magaalada dhexdeeda ku nool cidna aysan kargareynin daawadeedii cudurkeedii midna aan fiirin ay tahay ay dhib badan tahay qofka hadii uu lo xanaaneeyo kale oo maxaa la walow hadirtaan aan arkayo oo la geeyay hadii ay tahay loodan oo kale lo la xanaaneeyay ama maxaa la yiraahdaa meel ku xiran oo kale cuntadeedii wixii dhakhtar loola kargarinayo ay tahay way fiican tahay laakiin hadii ay tahay loodii aan ogeyn ee maxaa la duurka daaqaysay tan duurka daaqta xataa samaha way fiican tahay hadii qofka lisay nadaafadiisa ay fiican tahay liana geeda daawaha ay soo daaqday oo maxaa la yiraahdaa oo liana geedahan xayawaanada kale marka lagu leeyahay xayawaanaya dhihin marka idaha kale lagu leeyahay kale hadii uu miyiga geedaha fog soo daaqay liana daawada waxa laga sameeyaa geedahan hadii markii geedihii daawada laga sameeyay uu xayawaankan soo daaqay uu soo cunay faa'iidooyinkii daawooyinka ku jiro dhan oo geedahan ku jiro ayadoo wuxuu u soo qaatay dabiici ah liana daawada waa la soo kiimikeeyay ayadoo dabiici ah soo qaato jirkiisa ku jiraan marka hadii xoolahaas aan cuntidoo kale caafimaad ayaa ka helaysaa laakiin hadii xoolihii ay yihiin wax magaalo daaqay oo dadku waxay cunayaan la cuno waxyaanahan jeermiska cunay dhakhtar uusan u joogin cuntadiisa aan la kontrooleynin neefkii maxaa la yiraahdaa caafimaadkiisa aan la kontrooleynin way dhib badan tahay oo waxay dhici karto in cunugii ama qofkii wixii uu ka qaatay xoolahaas inuu ku xanuunsado ayaa la arkaa marka hadii looda ay tahay maxaa la mid miyi soo daaqday geedaha soo daaqday maxaa la caanaheeda daawo leeyihiin dadka lisay in ay yihiin dad maxaa la yiraahdaa nadaafadooda ay fiican tahay adiga marka lagu keenay caani aska sii karkarisay oo cunugaada nadaafadiisa ay ilaalisay way fiican tahay sidoo kale waxa wanaagsan hooyada wiilka iyo caanaha cunugga ku siinaysa ama maxaa la yiraahdaa masaasad ha ahaada ama galas ha ku siiso in cunugga nadaafada wiilka ay ku siinaysa ay ilaaliso ayaa qurux badan oo maxaa la yiraahdaa ilmaha xagga caafimaadkooda oo fiican muuqaalka intaan ayaan kusoo gabagabeynayna insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo koobo hadii ay tahay markii kugu horeeyay aan soo booqataa subscribe noo saar gambalkan furo hada hore noola joogtaan like noo saar asxaabtaadana u sii share gareey